السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بها سكري عيسى أو كما قاعدين حرباوي إن بدن وان كلا مقنين إن شاء الله تعالى ويجان إلهي كدن بيسي كونتينيوس عام سحرير أيان أسيوه يدونا فيديو ديني maanta waxaan ka hadlaynaa aba aan falanqeyn doonaa aba aan indhayn doonaa isbuucan muraajacadiisa amba kormeer aan ku samayn doonaa maadaama suuqa uu xiran yahay maanta oo axad ah oo aan rajeynayno berito iyo wixii ka bilaabada hadduu alle insha allah isniinta ilaa jimcada in aan faa'iido fiican aan ka qabano sidaas darteed marka waa inaan analyze-kii iyo qof walba oo isku diyaariya suuqa meelaha oo jaanisyo oo ka heli karo meeshuu ku sugi karo iyo suuqa markii la furayo meeshuu ka geli karo hadduu alle insha allah soo dhowr shay ayaan fiirin doonaa euro dahab oil iyo pound ayaan fiirin doonaa maanta iyo cad intaasba waan fiirinaynaa waxaan haddii aan ku bilaabo euro cad waxaad aragtaa bishii lasoo dhaafay oo dhan inuu ku jiray dhigitaan haddana uu bilaabay xoogaa yar uptrend inuu galo balse ay noqon doonto mid soo dhici doona maadaama waan arki doonaa cad ayaa kor u socda sidaas darteed marka euro canadianka waa inuu hoos soo aado hadduu cad u kordhao balse mararka qaar waxaad arkaysaa euroda xoog ah news ayaa usoo baxa euroda waa uu ku dabaqaya maadaama euro cad u yahay so analysis-ka markii aan fiirino euro cad up ayay u socotaa balse waxay doonaysaa markaan laba mid ayay doonaysaa inay soo jibiso eridan oo sidaan oo kale inay usoo jibiso kadib retest meeshaan ay ku samayso kadibna oo si fiican usoo dhaco oo supportigii hore in mar kale uskato mar kale oo supportiga u tago waa insha allah optionkaas oo u furan yahay optionka kale u furan waxaa weeyaan euro cad inuu eridan imaado kadib buygan uu galo insha allah oo taabto eridan hore oo resistance ah supportii hore ahayd laakiin maadaama resistance hore ah double top laga soo celiyay qiimaha wuxuu noqon doonaa mid inta imaada after that waxaa weeyaan labadaas option so marka waxaa ku sell garan kartaa ama ku buy garan kartaa buy here markuu support uu ka dhigo ka kaco 4 saac ama 1 hour-ka buy grade adigoo riskigaaga inta ka dhigayo haddii kale sell limit inta ku sug 1.5120 markuu cuskado ilaa 1.5 haddii aad aragto 1.5 meelahaas absolutely then waxaa weeya meeshaas ayaad ka sell garan doontaa haddii kalena markuu jibiyo trainkan markuu jibiyo test uu ku sameeyo uu dhacayo ayaad sell dhihi doontaa insha allahu tacaala weli kamid yahay haddii aan fiirino sidoo kale oil good opportunity ayaa ka jirta haddii aad aragto oil weekii oo kale ama weekly oo kale haddii aad fiiriso waxaad arki kartaa in area test uu ku sameeyey uptrend ayuu ku jiray waa uu soo jibiyey hadda retest ayuu ku sameeyey weegan iyo weegyada soo socda hadduu alidna insha allah waxay samayn doonaan inay soo dhacaan ayay samayn doonaan oo micnaheedu ay tahay in qiimo soo hoobta ama hoos soo aad ay noqonta so marka waa lasoo update garanayaa oo groupkiina page groupyada iyo groupka video waa lasoo update garanaya insha allah oil waa sell oil waa direction waa clear sell weeyaan sell labada meelba intuu aad ka geli kartaa 6380 ama 64 something like that ilaa next week waxaa weeyaan riskigaagna waxaad qaadanaysaa wax ka yar 100 iyo something micnaheedu ay tahay 100 ilaa 80 ilaa 90 ayaad qaadanaysaa intaan kore ayaad ka dhiganaysaa oo qaybtaan kore ayaad kaga dhiganaysaa maadaama hadda aad aragto clear trainkan inuu soo jibiyey one here support marka saddexaad free group inuu muskada laakiin jibiyey hadda ku noqday test then hadda uu sameeyey inuu si toos ah sida noqdo insha allah so oil waa sell oo clear ah sidoo kale haddii aan fiirino dahab
dahab haddii aad aragto dahab waxaad arki kartaa isagana inuu sell yahay balse lagama filaynin inuu hal mar sidan usoo hoobanayo dahabka maadaama trend uu jibiyey balse markii caadi la fiiriyo dollarkii last week wuxuu ahaa strong waxa weeyaan kor ayuu u socday sidaas darteed marka dahab sidoo kale China oo kale heshiis hordhacaya sii gaaray dahabka xogaa waa u soo dhacaya then hadda waxaad arki kartaa marka dahab waxaa ku bay garan kartaa inta 1285 oo aad aragto maadaama resistance hore ama downtrend uu galay inta ayaad kaga qaadan kartaa wax la yiraahdo risk ilaa inta ayaad trade garan kartaa 1298 after that waxay u badan tahay dahabka inuu jiyo supportiga oo kal hore ahaydna another support sidaad aragto supportiga marka waxay noqon kartaa marka inuu mar afraad meelahan ama meel u dhow taabto then uu kor aado laakiin waxay u badan tahay dahab inuu dhici doono hadda insha Allah waxaa kamid ah aan rabnay inaan fiirino CAD JPY ayaa kamid ah CAD JPY euro CAD waxaad rabtaa inay hoos u socdo iyo lacagaha ka soo horjeeda CAD hadda wuxuu joogaa strong resistance waa triple resistance hadda waa markii saddexaad laakiin wuxuu isku dayayaa inuu ku jibiyo laba mid ayaad samayn kartaa hiya waxaad samayn kartaa inaad sugto uu jibiyo marka allaale markuu jibiyo oo iskaba qaybtan sare support uu ka dhigto kor aadi rabo ayaa bay garan kartaa CAD JPY marka kale waxaad ku sel garan kartaa in laga soo celiyo fake break aad meeshan ku sameeyay saacadaha yaryarka oo la soo celiyo retest ku sameeyo one more sell ama one candle oo bearish oo clear ama bearish engulfing ama bearish pin bar wax inuu kugu tusiyo kugu cadeeyo after that qiimahaas hoos ayuu aadi doonaa ilaa eridan meelaha wax weyn ma aha sidaas darteed marka CAD JPY technical ahaan last week sidaad aragtaba waxaad aragtaa support inuu ka dhigtay sidaas darteed marka waxaan ku xirnaa anaga area entry oo aad aragto si clear ah markii saddexaad ayuu uskaday saacadaha yaryarkeena haddii aad aragto waxa weeyaan si clear ayuu uskaday wuxuu isku dayay kanalka inuu kor uga aado alxamdulillah waa kaga baxnay maasha Allah sidaas darteed marka CAD JPY isagana waa kaya soo isaga wuxuu baahan yahay in badan iyo taxadar waa la soo abaalgareynaa isaga sidoo kale haddii aan fiirino pound USD downtrend ayuu ku jiraa still Brexit dealka waa isku dhagan yahay mar walba delay ayaa la sameynayaa oo bil kadib ayaa lagu darayaa ama maalmo ayaa dib loo ridayaa welina budgetkii saxda ahay lagama aqbalin marba waxaa laga bedelayaa statementida ayaa wax laga bedelayaa si ay parliamentiga u aqbalaan caqabado badan ayaa ka jira pound markuu wiiskaas oo kale soo baxayo ka fogaaw inaad trade gareyso waayo ama waa khasaaraysa ama waa faa'iidaysa inta ugu badanna khasaaro weeyaan waayo wuxuu sameynayaa jaari saxda ah isagoo u socdo ayuu hal mar soo boodaya stop loss-kaaga ayuu ku dhufanaya haddii aad dhahdan stop loss la-aan ayaa isticmaalayaan micnaheedu waxaa weeyaan hadduu dhinac kale soo aado 200 300 hadduu kor u soo aado adigu sal ku jirtay waxaa macquul ah inaad khasaaro weyn aad gasho marka ka fogaa pound haddii aad gelaysana lodkaaga aad iyo aad uga taxadar iyo intaad khasaari karto inaad ku xisaabtanto hadda insha Allah soo pound waa kira one retest mar saddexaad maadaama horay mar labaad markii saddexaad hadda fake breakout uu ku noqday soo qiimaha markii la furo waa sell pound waa USD waa sell up to here 1.2960 adigoo aad ka dhiganayso stop loss-kaaga meelaha 1.3160 areas insha Allah pound USD second was so big greener group keenin weyn iyo kan kalaba intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa suuqa analysis-kiisa iyo wixii kalena waa soo bixi doonaan hadduu adagno weekend si toos waxaan u bilaabi doonaa insha Allah fiidyadii toos aan usoo gelinaya live-kii iyo waxyaalo badan waan ka cudur daaranaynaa waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyogan haddii aad ka heshay like comment share asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu